hawsha iskariyo inaga dadka la xulay ee dawladda Soomaaliya u baxay inageenima matalaan garabkayga waxa taagan Cabdikariin Maxamed Xirsi oo aan bal jecelahay inaan ka wareysto xulka qaranka oo in badan la hadalhayay balse marar badan aan suurta gelin Cabdikariin ugu horeyn soo dhawow chance wada heshay markii ugu horeysay waddanka ka baxdid adigoo fanaanadan matalaya bal ku soo dhawow ugu horeyn mawduucan iyo guud ahaanba bahda sportska bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay iskariyo walaal bahda sportska ilaahay baa ugu horeyn mahad iska leh runtii waa run chance baan u helay alxamdulilah inaan mar qarankayga matalo fanaanadiisa xidho weliba anoo ku xusnaa markaa kabtankii xulka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee matali uga qaybgelay dowladaha la aqoonsanin ee lagu qabtay Abkhaasiya wadamada midowga Sofiyeeti ku jiray Ruushka hoos yimaada farxad weyn bay horta yahay waxaan ku haamiyo riyooyinkayga qayb ka mid ahayd way ahayd marka aadna ugu faraxsanay mar koobaad iyo mar labaad iminkana in la helo qaranka xulka Jamhuuriyadda Soomaaliland matala waa mid baahi weyn loo qabo ana riyo waajibayna u rumowdo dhalinyaro badan oo maanta kusoo jira suuqa awoodoodiina leh una diyaarsaneen physical ahaan iyo xirfad ahaanba marka wallahi waxaan leeyahay waa chance baahi weyn loo qabo laakiin weli aan la garan Cabdikariin dhalinyaro badan baa kubadda cagta ciyaarta waad ogtahay 30 sano Soomaaliland jirtay kubadda cagta meesha ugu sareysa ee laga gaadhaa waxa weeye inuu ninku Hargeysa Stadium ka soo ciyaaro waliba heerka koowaad u ciyaaro iminka xulka qaranka Soomaaliya dhawaan baa la xulay may suurta gelin in walaalkan ciyaartoy looga yeero oo lagu daro iyadoo ognahay national team inaan waddankeenu lahayn wixii ay wada lahayn halka ku maqan tahay Cabdikariinow aragti ahaan ma isleedahay Soomaaliland wax badan ay leedahay ba ka maqan walaal sikri walaal waxa weeyaan wax ka maqan way jiraan xulka qaranka Soomaaliyeed loo xulay hadii halkan laga diray hadii kale meel laga daraba inaga shakhsiga ama aan ka tagay ama meel kale ka tagay bay nagu matalo wasaf inaga qarankeena waxa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Soomaaliland qaran gaar ah oo 32 sanadii u halgamay madaxbannaadiisa nahay kamaniyo jabaniyo shalay ilaahay oo ka rajeynaa mahal qarankeena ku biiri dawladaha la aqoonsan oo ka baxa dawladaha aan la aqoonsanayn warajeynaya kulli waa baahi weyn baa loo qabaa oo in la helo qarankii waa waxa weeyaan waa chance ugu jira waxaana qayb ka noqonaysaa itiraaf raadinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waana meelaha laga baxo oo diblomaasiyiin ka soo bixi karaan oo qadiyadeena baahiya bulshooyin badan oo aqoonin baa jira baran lahayn sanadkaaba waxaanu chance u helay in intaas oo bulsho kala gedisanay ay bartaan oo wadamo kale ka yimid oo qiyaastii 4 milyan baa yimid filaya hadaan qaldanay horta cidii soo qaban qaabisayna xulkaas iyo cidii xulku markaa ka saarnaa wuu mahad celinina waqti xaadirka dawladii siraaye ahayd aad baan ugu mahad celinina xiriirka hadda jooga marar badan buu shaaciyay in liiska la xuli doono mar dambe wuxuu ku celiyay in macallimiinta CV-gooda ay soo xareysanayaan may suurta gelin wasaaradda sidoo kale may suurta gelin sidoo arkaysay marka arrinkaasi iyada ay soo baxayeen wallahi arrinkaas walaal wuxuu ahaa arrin aad aniga farxad geliyay waana riyo ku jirta mid ka ciyaaraya heerka koobaad iyo mid ka ciyaaraya heerka afraadba waa riyo ku jirta oo because qof waliba wuxuu ugu hamiyaa qof waliba shakhsi waliba dunida ku nool uu hangaba waa qarankiisa mid qalin ku difaaca mid qori ku difaaca iyo mid adinkiisa ku difaacaba waxa horta nin waliba uu jecel yahay inuu qarankiisa wixii xirfadiisa uu ku yeeliyo waana kulli run ahaantii waxay ahayd hadal farxad geliyay cid kasta oo bahda sportska ku jirto sportsku kaliya ma aha kubadda cagta laakiin waxaan leenahay orodyahanno waxaan leenahay bulsho ahaan waxaan nahay dad u diyaarsan wax kasta alxamdulilah marka laga heli karo marka waxaan leenahay chance-kaas waxa chance wallahi runtii qof walba farxad gelinay laakiin aan laga dhabaynin riid cisuudeen way tahay in la rumeeyana waa waajib oo cidii hawsha loo igmada bay saaran rajaga maruna ma ku jirtaa inta saaxadda ku sii jirto inaad marun fanaanada xirato oo aad matasho xulka wallahi Soomaaliland dhalinyaro kala duwan aad hogaamisid wallahi security horta walaal waaxid alxamdulilah waxaan kulli waana riyooyinkan isleeyahay waad kaga ayaan badan tahay kulli dad badan laakiin ma aha riya aan rabo inaan kaliya ku koobnaado koosof waa riya aan doonayo inuu shakhsi kasta oo Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii aan dareemay maalinta inuu dareemo marka maalinta qof waxa la mid ahaa ninka maanta qarankiisa difaacaya xabada isku dhigay wuxuu dareemay qof emotion ahaan waxay waxaan ku dhawaanay inaan ilmeeyo markaan heesta qarankayga maqlay anigu markaa micno kale way ii sameeyay Hargeysa maalintan joogo aan heesta maqlo iyo maalinta anuu Soomaaliland ka baxsaan aan heesteedii maqlay
markaa waxaan isku arkay qof dee umadiisii xil ugu dambeyntii bal fariinta ugu dambeyd saad u dirayso maadaama halkan maanta fanaanadii baad sidataa dhalinyarada iminka u arkaysa in dee marun ay u helaan nasiib sida ciyaartoyda soomaaliya ay u helayaan hore waxaa u tiri noma matasho xulka soomaaliya baxay adigu aragti ahaan maxaad iminka fariinta u dambaysa u diraysa ay noqonaysa walaal waan kuu sheegsi kariyo inaga dee dadkaa la xulay ee dee dowladda soomaaliya u baxay inagay nima matalaan waa run waa dad walaalihiinoo soomaaliya oo dee soomaalinimada iyo dee diintiina walaalaysay inay guuleystaanna waa shaqsi waxaana waan jecelahay shaqsi walibana jecel yahay waana dee wax diiniyana weeyaan walaalkaasoo dee laa ilaha illa maxamed rasuulullahi walaalaysa guushiisa inaad ku faraxdaa waa waajib diiniyana ku saaran sunna ana marka inay guuleystaan waan jecelahay guulna wuu rajaynaya laakiin qaranka jamhuuriyadda somaliland waxba kuma matalaan iyagu qaran soomaaliya la yidhaha baa ciyaaraya qofka inanka dee maanta joogay dee meel kale waxaan qaltaagaya waxaan leeyahay qarankiina aynu iimaansano kanaynu wax ku nahay waxaan rajaynayna way imanayaan iyo inaan salfududaanin iyo inaan degdegin baan leeyahay kulliya xidhiidhka iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhuna waa calaamad su-aal iyaga hortaala inay ka jawaabaana u baahan tahay marmarsiyana male su-aashaasi ka jawaabitiin because of horeynu u nidhi madax banaanida somaliland waa muqadas wax gorgortan geli kara maaha markaa xulka jamhuuriyadda somaliland in la helaa waa muqadas wax gorgortan geli kara maaha dabca inuun marun inaad shaqada xidhiidhka qabato baahiyaha dhalinyarada ka maqan inuun marun adiga kugu jira walaahi xaasi kariyo walaal waxaan dee way igu jirtaa inaan u shaqeeyo dhalinyaradayda oo waxaan jeclahay weeye waana hamiyadeedii ka mid tahay weliba dhalinyarta sportska inaan raadiyo xuquuqa badan oo aniga iga maqnaa waxaan iga haniga inayna kuwa iga dambeeya inayna waayin ay helaan wixii aan waayey wixii aan helo dee jaanis kuwii hore ayna helin igu horreeyeen alxamdulilah ilaahay baa ugu mahadnaqayaa laakiin waxaan rajaynaya wax kastoo kuwa iga dambeeya ayna helin inaan helo waana riyadayda inaan dhalinyarada sportska somaliland marun u shaqeeyo amaana xil u qabto oo mid iga go-an laakiin waxaan u malaynaya hadda waqtigeedii ma taagni gabagabada fariinta u dirayso baada sportska meel walba joogto walaahi waxay noqon kartaa cajkale la wadaagisa walaahi sakriyo walaalahan waxaan u dirayaa dhammaan jamhuuriyadda somaliland bahdeeda sportska iyo bulshadeeda inta kala duwan dhalinyarada oo badanba waxaan u dirayaa oo walaalahan qarankeena waynoo baahan yahay aynu garab istaagno isku duubnida aynu ka shaqayno waad arkaysaa waddankeenu xaalad buu galay laakiin alxamdulilah waan ka baxaynaa xaalado inta ka badan oo ka adag ba waynu soo galnay waxaan rajaynayaa insha allah sidii hore si ka qurux badan inaynu uga baxno okay aad karineen fanaanada qaranka oo la xidho xulka qaranka Soomaaliya la xidho meelo gooni bay sameynaysaa adiga iyo dhalinyarada waa sameynaysaa walaal kiri walaal waxa u sameynaysaa macno weyn waxa weeyaan waa kan waa qarankeeni waa fanaanadaas weeyaan Soomaaliland baa ku qoran marka waxa weeyaan de macno weyn baa wala sameynaysaa waa la arkay shakhsi Cabdikariin oo maanta xidhan qaranka gaashaan Cabdikariin oo xidhan qof kale oo xidhan fanaanada guud maaliyadda dowladda hoose iyo dhammaan kooxaha kaleba kulli qof oo lagu leeyahay dhammaan aragtiyaha kooxaha si daawayaashooda ay aaminsan yihiin waxa midaysa waa fanaanada laakiin midnimada iyo garab istaagga ciidankeena qaybahooda kala duwan waa muhiim dhalinyaro waxaan leenahay qarankeena Somaliland waxbay nooma labeeyaan Somaliland bayna labaysaa calanka tawxiid ku qoraya laa ilaaha illa maxamed rasuulullah ayayna mideeya waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa in insha Allah waan helaynaa waan rajaynayaa insha Allah fanaanada waxaan xidhay iyadoo laleeyahay waddankaygu dowladaha aan la aqoonsanin ka qaybgeliya laakiin waxaan rajaynayaa inaan arko waddankayga oo ka qaybgeliya dowladaha la aqoonsan yahay insha Allah